waxaa lagu soo gabagabeeyay garoonka Burhani Stadium xaafadda Isliya magaalada Nairobi tartan kubadda cagta ah oo lagu baroordiiqay Allah u naxariistay madaxdii isboortiga Soomaaliya Aadan Xaajiye Baroowish iyo Saciid Mugambe oo lagu dilay qarax ka dhacay Muqdisho. Tartankan oo ay ka soo qayb galeen 4 kooxood ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda isboortiga Soomaaliyeed ee wadankan Kenya iyo bahda isboortiga Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi. ciyaartii kama dambaysta ee tartankan halka maalin socday ayaa waxaa isugu soo haray kooxaha Withworth Sports Club iyo Al Imra waxaana daawashada ciyaartan ka soo qayb galay dadweyne fara badan iyo mas'uuliyiin isboorti. ugu horeyn ujeedada tartankan loo qabtay iyo inta koox ee ka soo qayb gashay waxaa sharaxaya gudoomiyaha jaaliyadda isboortiga Soomaaliyeed ee Kenya Khaliif Ali Ahmed Bajo. maanta waxaan qabanay tournament oo loogu talagalay Allah u naxariistay guddigii ka socday Olombikada Wish Yebro iyo Saciid oo ahaayeen run ahaantii dad aan laga samri karin xagga isboortiga maantana aan weynay daraadeed ayaan waxaan u fikirnay seen u xasuusanaa walaalaheen maadaama ay ka baxeen nafaaskii marka taa daraadeed ayaan ugu soo fikirnay inaan sameeyno labadan kooxood u jeedin maanta halkan yaala waxaan u qabanay 4 kooxood 4tii koox waxay knock out saaka ayaan bilownay 2 saac salaadii jimcaha ka bacdi ayaan dana finaalku ila sugin labadan koox saad u jeedid haddana waxay ku socotaa ciyaarta hal iyo eber marka kulli kii raayaan ku guddoonsiin doonaa hadii la raali ka noqdo waxaan kaloo salaameynaa bahda isboortiga dhammaan adduunka tacliis meel kasta ay joogaan ugana tacsiyeynaa walaalaheenii naga tagay sharafta lahay iyo ehelkii ay ka tageen dadkaas oo ayagana u tacsiyeynaa leena samri iimaan Allah in ka siiyo. sidoo kale waxaa iyaguna tacsi ku wajahan bahda isboortiga Soomaaliyeed iyo eheladii ay ka geeriyoodeen madaxdii isboortiga Soomaaliya goobta ka diray qaar ka mid ah halyeeyadii hore ee isboortiga Soomaaliya. waxaa garbeega fadhiya gudoomiyaha jaaliyadda oo Nairobi Khaliif dhinaca kale waxaa fadhiya macallin bedel oo macallimiinta ugu waaweyn Nairobi macallimiinta ugu wanaagsan ka mid ah yaani waa Cabshukuur Jeeye halka waxaan rabaa inaan munaasabadaas Allah u naxariistay Wish iyo saaxiibkiis Saciid Mugambe martay ugu tacsiyeno geerida ku timid inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geerida xaq waaye inkastoo muslim oo anaga naga mid geerida wasuulaysa haddana waxaan leenahay janniyo raxma Allah siiyo Allah u naxariisto ilaahayna waxaan baryaynaa janniyo raxma inuu siiyo naxariis janna Allah siiyo halkaan waxaan ka tacsiyeynaa eheladii ka tageen iyo inta isboortiga oo dhan ee tacsiye gaarsiinayna inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan maanta meeshan munaasabadan ugu qabanay nimankii madaxda isboortiga ahaa iyo intii kale oo kula dhimatay qarixi ka dhacay tiyaatarka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun samri iimaan Ilaahna ka siiyo ilayhi samri iimaan Ilaah ka siiyo Soomaalidana Ilaahay samri iimaan ka siiyo. guud ahaan ciyaartii finalka ayaa waxaa 2-1 ku badisay kooxda Withworth Sports Club oo la guddoonsiiyay koob qurux badnaa oo loogu talagalay munaasabadan baroordiiqda ah. koobkan waxaa loo dhigay dadkii ku geeriyooday qaraxii tiyaatarka ka dhacay Olombikada Soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa Wish iyo Saciid Mugambe maanta waxaa ku guuleystay kooxda oo Withworth Sports Club ee ka dhisan Nairobi Kenya waxaan aad ugu faraxsanahay koobka aan ku guuleysanay tartanka maanta ka dhacay oo one day tournament aan ku guuleysanay aad ugu faraxsanahay. sidoo kale kooxda Al Imra oo kaalinta labaad ka gashay tartankan ayaa iyaguna waxaa la guddoonsiiyay koob labaad. 2 maalin ka hor ayaa waxaa magaalada Muqdisho qarax ka dhacay lagu dilay gudoomiyaashii Olombikada Soomaaliyeed iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Aadan Xaajiye Baroowish iyo Saciid Mugambe. Ibrahim Gedo Cawaale S24 TV Nairobi.